ciyaaryahanka Wolves Hwang Hee-chan ayaa la kulmay xadgudub takoor ah kulankii saaxiibtinimo ee Portugal. Wolves ayaa ku baaqday in baaritaan la sameeyo kadib markii uu sheegay in Hwang Hee-chan uu la kulmay xadgudub takoor ah kulan saaxiibtinimo uu la yeeshay naadiga Farense ee reer Portugal. Wolves ayaa soo xirtay ololaheedii isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub iyadoo barbaro 1-1 ah la gashay kooxda reer Portugal. Laakiin waxaa hareeyay Hwang oo lagu bartilmaameedsaday cunsuriyad kaga timid taageerayaasha kooxda Farense ee reer Portugal. Kooxda Premier League ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri aad ayaan uga niyad jabnay inaan soo sheegno in mid ka mid ah ciyaartoydeena uu bartilmaameed u ahaa tacadiyada takoorka ah ee taageerayaasha mucaaradka intii lagu jiray ciyaartii fiidnimo ee SC France. Waan u sheegi doonaa dhacdada UEFA waxaana weydiin doonaa kooxda naga soo horjeeda iyo mas'uuliyiinta ay qusayso inay baaraan. Waxaanu taageero buuxda siinaynaa ciyaartoygeena lagula dhaqmay takoorka. Cunsuriyadda nooc kasta ha ahaatee waa wax aan gebi ahaanba la aqbali karin, waa in laga hortagaa mar walba. Rigooradii Hwang ayaa barbaro ku heshay kooxda uu tababaraha u yahay Bruno Lage kadib markii ay ka dambeeyeen goolkii furitaanka ee Christian Bond. Cristiano Ronaldo ayaa saftay kulankiisii ugu horeeyay ee isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub ee Man United kulankii ay barbaraha 1-1 ah la galeen Axadii Rayo Vallecano kadib xagaagii oo la isla dhexmarayay mustaqbalkiisa. Sawiro muujinaya Ronaldo oo ka tagay Old Trafford ka hor ciyaarta finaalka ayaa ka soo muuqday baraha bulshada, laakiin United ayaa cadeysay inuu ka mid ahaa ciyaartoy dhowr ah oo sidaas sameeyay, mana ahan arrin kooxda u taal. Ronaldo oo marar badan United u sheegay rabitaankiisa ku aadan inuu ka tago kooxda ayaa qaybtii hore ciyaarta u ciyaaray ka hor inta aan lagu bedelin gooldhaliyaha Amad Diallo ee Manchester United goolka u dhaliyay. Ronaldo ayaa ka maqnaa safarkii isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub ee United ee Thailand iyo Australia isagoo la tacaalayay arrimo qoys, waxaana uu kaliya ku soo laabtay tababarka Talaadadii markaasoo isaga iyo wakiilkiisa Mendes ay wada hadallo dheeraad ah ka yeesheen mustaqbalkiisa. United ayaa ku adkaysanaysa in aysan ganaaxi doonin iibinta ciyaaryahanka 4 jeer ku guuleystay Ballon d'Or kaasoo si adag ugu jira qorshaha Ten Hag. Inkastoo Ronaldo uu ku adkaystay inuu baxo, ma jirin wax calaamad ah oo xumaan ah oo isaga uga yimid Old Trafford. Taageerayaasha ayaa ku soo dhaweeyay farxad weyn markii uu ka soo baxay tuneelka ciyaarta kadib waxa uu soo dhigay kanaalada uu ku leeyahay baraha bulshada inuu ku faraxsan yahay inuu soo laabto. Ma cadda halka uu Ronaldo ka bixi karo maadaama Chelsea aysan hadda u muuqan dooqa halka Bayern Munich iyo Atletico ay u muuqdaan kuwa si cad u diida inuu u dhaqaaqo. Saaxiibayaal aad iyo aad ayaa ugu mahadsantiin sida wacan aad ugu xiran tihiin barnaamijkeena. Warkii maantana halkaas ayuu nooga eg yahay, waana inaad ku dadaashaan subscribe-ta, like-ta, share-ta iyo comment-iskaba. Maalin walbana waan ka codsadaa, laakiin wax yar unbaa codsiga aqbala. Fadlan isku daya inaad dhammaantiin aad aqbashaan codsiga ay inii soo gudbinayo si aan hore ugu sii socono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.